بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. maanta waxay iga sheekeynaa qiso yar oo cajiib ah aan akhriyay oo aan marka waxaan jeclaaday inaan idinkan idin sheego oo idinka sheekeeyo. Sida waxay ka hadlaysaa saxaabi jaliil Mucaawiya bin Abi Sufyaan radiyallahu anhu markuu amiir almu'miniin ka ahaa dowladda al-Amawiyya oo al-Khilaafa al-Amawiyya waqtigiisa dhacday. marka qisadu waxay ku bilaabay marka Mucaawiya macruuf wuxuu ku ahaa wiilkiis alihiis daahiyatul carab loo bixiyay aad buu caqli badnaa ninka carabta ugu caqli badan baa lagu sheegay waagaas. marka wuxuu sameeyay Mucaawiya waxaa dhacday mar muslimiinta oo ka dagaalamaya Qastantiniya magaalada Qastantiniya la dhaho oo hadda meesha Istanbul ku taala iyo dagaal ka dhacaya baa dagaalkii muslimiinta dagaalkii intuu socday baa niman muslimiinta kamid ah la qabsaday lagu dhigay boqorkii baa loo geeyay. marka dhowr muslimiin ay ahaayeen mid muslimiinta kamid ah baa hadlay marka inay isdifaacaan oo boqorka la hadlay. marka Qurayshi buu ahaa بطريق بقى معنا بطريق مركب وبادري دهان wuxuu yahay waa mustawa waa meel fog buu gaarsan yahay xagga Kristiyaanka. marka mid kamid ah oo nimankii meesha joogay iyo mid kamid ah batariiqda meesha joogay batariiq beelaan meesha joogay waa imaaday arbaaxo ku dhuftay oo bulana arbaaxo ku dhuftay ninkii intuu xanaaqay u qeyliyay waa islaamaa أين أنت عنا يا معاوية؟ طلع يا معاوية حقي جرتاوي يعني حقينا غطورتي عدوي بقى عند النوجلسي ديجن إيو ولا عبي عدوي بقى عند النوجلسي أو متقارن نوع حجرتي معاوية مرك هذا الكيبا جاري حناقي أب وحماضي وحال كلمة داس يعني بقى قبتي cuntadii cunto iyo biyo baa ka go'ay ciil daraadiis wuu baxay meel iskugu noqday khid soo degay meeshin buu soo degay dadkii dhan buu intuu ka go'ay muddo meeshin soo degay. markaas wuxuu sameeyay khitayar buu ka shaqeeyay in muslimiintaas lacagtii iyo wax kasta lacag buu bixiyay wax kasta khitayar muslimiintii la soo bixiyay oo la haystay muslimiintii la keenay magaalada ninkii buu u wacay wuxuu yiri kumaana tuurin man ku hagran buu yiri marka wuxuu yiri wuxuu ku dhahay lam nuhmilka wa lam nudayyicka wala abahna damaka wa irdak wuxuu yiri maanu ku dayicin buu yiri man ku hagran shib buu yiri iska aamuso iska tagay. Mucaawiya wuxuu sameeynin oo marka Dimashq waa taqaan Suuriya badda xagga magaalada nin oo ma taqaan dooyaha macallimka uu wacay kale weeyri waxaan baan ku dirayaa weeyri ninkaas marka aad qasawaadka ee badaha iyo aad buu khatar ugu ahaa. wuxuu yiri ninkii uu wacay wuxuu yiri kaalay khitaba ku haya khitadaas uu sheegay lacag badan buu siiyay weeyri bax xagga tag waxaa ku soo gadataa waxyaalo badan dahab yani Istanbul tag yani meesha hadda Qastantiniya tag taajir iska dhig taajir marka iska dhigtid oo shaqaysatid taajir marka iska dhigtid oo meesha tagtid waxaa iska dhigtaa nin muslimiinta aan jecleen camal yani gaala jecleystay camal iska dhig boqorka u gal hadiida qaybi saas ugu daad hadiida bixi hadiidahaas hadiidihii boqorka sii iyo bataariiqda agtiisa kulliya aan ka ahayn kii muslimka darbaxada ku dhuftay siin saas sameey oo ugu talagalay sidii uu sameeyay hadiido ku daadiyay farxad iyaga way hadiido jecel yihiin dahab jecel yihiin wax kasta jecel yihiin. markaas wuxuu sameeyay uu soo noqday sidii uu sheegay sidii baa sameeyay yiri haddana lacag kale uu siiyay hadiido badan buu ku goray wuxuu yiri markaa noqotid kii ku imaan doona wuxuu ku dhigi doonaa aniga maxaan dambiga ka galay maxaa waaye maxay ii sii weydaysaa waxa uu siinayso kuwaas sidii uu noqday magaaladii wadana Qastantiniya ku noqday hadiidihii markuu qaybiyay kiiba albaabka ku dhigay wuxuu yiri war kaalay
intaa nin oo ila mid ah macal boqorka waxaa siisay aniga maxaa waa dambiga ka galay kaasuu yiri iga raalihow anigu waxaa nin qariib baan ahay wadanka waa ku cusbahay waxaa waa muslimiintana waa ka cabsanaya inay boqorka igu diraan amiir muuminiinka igu diraan oo jawaasiista iyo bas fiir maadaama hadda adi ii sheegtay dhaladaan catarka ah carafta badan oo qaaliga ah marka Mucaawiya wuxuu ku yiri markuu saas ku dhaho ku imaado ka cudur daaro dhaladaasi waxaana ku dhahdaa anigu maadaama aad iga hesho yani raaligelin iga ah amar kasta haddaan uga baahdo Qastantiniya Rome meesha uga baahdo adiga igu caawin doonto يعني hoosta gasho camal isagana hoos u gashto yani khalaas ka hela camal sidii baa la isku ogaa sidii buu sameeyay ninkii waa farxay 3 sano beesa ku socotay 3 sano inuu sii soo noqdo markasta Mucaawiya u soo noqdo dahab iyo alaab iyo citar iyo dhar iyo wax kasta gado celiyo khalaas ninkii waa siiyay marka waxa waaye batriiqi baadarigi nasraaniga ahaa uu siiyay saxaabigi ninkii waxa ka ninkii oo u shaqeynayay Mucaawiya markuu siiyay oo niyad u gashay wuxuu dalbaday maalin mar kamid ah wuxuu dalbaday sijaayad aad u qurux badan oo kala leh oo buluug iyo guduud iyo wax kasta ku jiraan oo aad u qurux badan buu dalbaday oo qaali ah Mucaawiya wuxuu u wacay ninkii saxaabigi ninkii buu wacay wuxuu yiri markaan maadaama uu dalbaday u gaday baashii u gaday markab weyn oo aad u qurux badan oo aad u orod badan buu diyaariyay markabkii marka sijaayadii markabkii baa lagu diyaariyay loogu dhigay camal loo yani mataqana waxa la rabaa doonta inuu soo fuulo marka waxa waaye hoosna doonta hoos waxa lagu qariyay rag baa lagu qariyay magaaladii buu soo baxay baakun aad buu orod badnaa magaaladii buu imaaday Qastantiniya baadirigi baadirigi waxa la dhahay wuxuu degan yahay magaalo oo tuulada ku taala laakiin badda camal ku taalo cabaar jirta magaaladii buu badda u geeyay magaaladii u tagay baadirigi markuu maqlay ninkii baa soo socda farxadda uu farxay khamri intuu ka dhargay suu ciyaaray farxadda uu farxay ma sugin xataa ninkii inuu uga soo tago doontii buu u fuulay sijaayadii buu isku dhex tuuray oo ku dhex seexay farxad daraadeed markuu ninkii arkay arintaas markuu arkay calaamadii isku ittifaaqeen lugtu ku dhuftay markabka nimanka soo bobooday afka waa laga dubay isaga iyo naagihiisa caawintii la socod waa la qabsaday shib isla markii hoos baa lagu tuuray doontii orodka ee oroday waxa waaye habeenkii badda dhexdeeda mareysay maalintii tobnaad markii ahayd Dimashq bay joogeen Dimashq waxa ka wada Suuriya maalintii 13aad markii ahayd waxa weeye ninkii Mucaawiya la hoos keenay Mucaawiya intaas sugayay missionkaas 3 sano u fadhiyay wuxuu u wacay ninkii Qurayshiga ahaa darbaxada u dhifan jiray u wacay kaalay ninka mujida kii waxa ku dilmiya soo ma ahan intii uu ku uftay kaga aarso hana ku dari ninkii darbaxada ku uftay ka aarsaday markuu ka aarsaday isla markii wuxuu ku booday Mucaawiya inuu shumay madaxa ku shumay shukriyo hay mujida maanu ku dhumin maanu ku hagran buuyi xaqaaga waa soo celinay baadirigii buu la hadlay wuxuu yiri hadiyadahan iyo lacagtan iyo dahabkan qabso boqorkaaga ku noqo u sheeg waxa tiraahdaa dadka ama-uulka ka tahay markay dib iyo dulam galaan adigoo ogeen baa mataqaana uga argoysana sidii buu sameeyay lacagtii wixii baa la siiyay si sharaf leh baa lagu celiyay magaalada markii lagu celiyay يعني doontii baa la saaray mar labaad magaalada baa lagu celiyay markii lagu celiyay qisadii boqorkii oo Ruumaanku ka sheekay waxa la yiri ilaa uu ka dhimanay boqorkaas Mucaawiya uu ka cabsan jiray marka qisadaas baa idiga sheekeynay rista oo mataqaana yani
aad iyo aad yani Mucaawiya waxa ugu yaqaanay caqligaas iyo khitadaas aad iyo aad u cajiib badan. Mid kalena waa idigu daraya oo isna Mucaawiya aan ka maqlay. Waxaa weeye tan waa maqasheen aan u maleynayaa. Tan oo mataqaanaa inta waxaa tan Camr bin Caas bay lahaa insha Allah. Midda kale ka sheekeyn doona marka la ka sheekeyn doona taala waa kaas inta sir baan dabcan idiga sheekeeyo. أصبت من الله وإن أخطأت من الشيطان فأتمنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.